ciyaalka aan qiyaastay jidka leeyin galay dugsi jaranyo ma dugsiga kasle aan galeen dad oo la controlay la afduubilay wala kumudi aan lay amalay madal wadaayna muji ciyaal dugsiga dhatonka dhumaamay anagu koomay ka jarahin suuratu zumar dhamaayay saad ya bilaaway meega san jaro kureek oo busiyari sagaal sano jara kasaayte gabartan ada todoba inus oo kala jarta todoba inus lamadiiba dad oo isku dugsihay dugsiga dhaton dadka dhumaw maxayna Abdul Mut'im Aways Abdullahi oo 9 sano jir ah iyo Aamina Aways Abdullahi oo 7 sano jir walaalo ah ayaa saaka aroortii meedkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Baay inta aan meedkooda la helin labadan walaalaha ah ayaa guriga waxay ka maqnaayeen oo la weysanaa in ka badan 10 saacadood sida uu Universal TV u xaqiijiyay aabaha caruurta Sheekh Aways Abdullahi marka qadarka ma ogonaayeen inta meedkooda la helin qadarkaas 8 saac lagu bilaw ilaa waa ku bariyay ma raabtiin meedkooda la helay okay meedka inta la ku helay sida telefoonka la inka sheegay adeer aadan aad saatay bohol galanjo bohol galanjo bohol galanjo ma sha Allah samri ma ilaa nafsi shal goobtan oo ah guriga reerka caruurtan ay ka baxeen ayaa soo buux dhaafiyay kumanaan dadweynaha oo xaafadaha Baydhabo ka kala yimid isla markaana la yaaban dhacdadan xanuunka badan ee qoys Sheekh Aways Abdullahi ku dhacday meedka labadan caruurta ah ayaa jirkooda waxa ka muuqda sida wararka ay sheegayaan dhaawacyo toorey ah oo dilkooda loo adeegsaday sidoo kale warar iskhilaafsan oo soo baxaya waxay sheegayaan in xubno jirkooda uu maqan yahay halka wararka qaarna ay sheegayaan in kaliya dhaawacyada tooreyda ay ka muuqato oo xubnaha jirkooda aan waxba maqnayn inkastoo ay xaqiijin karaan arintan oo kaliya hay'adaha amniga oo gacanta ku haya baaritaanka kiiskan halkan oo ah qabuuro ku yaala duleedka magaalada Baydhabo waxa ka qayb galay kumanaan dadweyne ah oo arintan la yaaban iyo wasiiro ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed sida wasiirka arrimaha gudaha kan warfaafinta cadaaladda iyo garsoorka xanaanada xoolaha taliyaha qaybta asluubta iyo xubno kale Sheekh Aways Abdullahi Ibrahim oo safar uga maqnaa magaalada caasimadda Muqdisho ayaa saaka degdeg ku yimid Baydhabo markii loo sheegay in laba kamid ah caruurtiisii meedkooda la helay waxa uu ka waramayaa dareenkiisa marka koowaad meelana ay muujinayaan in Ilaahay wali qadari raala ka anna meelay Ilaahay usu oomi usun wanaagsaday qaabka usu ka nagsadaa oo usu mini kala taladaw qaabka in la ka nagsada leenka tala gali geeliyo la abuuraya sadahayti meelana qadaa wa qadar wal Ilaahay xukumay qadariyo ونون ميلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا إلهي ما هديسكو دنب ما هديي لما ددكي نو كل قيب قاددي عيالكي يريراي دغوشو كفنيوجو كتكدوشو دوغوشو iyo wal kastaba aan baahnaayeen dadkaasoo in iska jiraan maamulka dawladda Koonfur Galbeed iyo shacabweynaha reer Baydhabo dambiyada noocan waa dambiyada oo adduunyada ka saas organized crime kana ma baahanyiin marka lagu horseedo galan bir lagu horseedo baahanyiin anti hata ka hor ka dhimatay waa ka dhimadan wali dhiman sidii liin badbaadi lahay Ilaahay badbaadi kore lankii galantiis dambiiliga haytiin sidii yani ciqaabkii isu mutay sidii liin mari lahay baaqaasay ma jeediyay xukuumadda iyo shacabka guud ahaanba wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyas Saciid Qalinle ayaa sheegay in kuwii dilkan ka dambeeyay cadaaladda la horkeeni doono dawlad goboleedka Koonfur Galbeedna warcad ay ka soo saari doonto xildhibaanku way baba ku tacsiyane anuu ku dahoow afka dhammaan xukuumadda Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan afka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Madlafta Gareen geerida xanuunka badan oo mayla raayo saada ka koyti qoyska xildhibaan Sheekh Aways oo runtii lama cunug AD8 ansurud badan dareemo kortaan daadiyo ka jiraan runtii ee daadaan ka fayl runtii garan ku xaq daran iyo ku dili Sheekh Aways marka hore way baan ku tacsiyaanay geeridaas xanuunka badan mar lamaad iyo mar saddexaad intaba intaas ku dib kan xukuumad ahaan runtii dhacdo way baabnii noqotay runtii AD8 naxdin badan leh dhacdooyin dhow ee magaalada Baydhabo ku dhiyeen runtii kan xukuumad ahaan walweyn ku qabanay tagna tacsiida ku dib ku reed way baab rajayaane inuu dib iska noqdo doona oo umadaas mayl raayo sada dhamaan laamo amniga la kulmo doona
insha allah dhacdadoona runtii si sax ee runtii oo macluumaad sax ee lagu helo runtii in baaris uu soo bii doona labadan caruurta ah sida aabahooda Sheekh Aweys Cabdullaahi uu xaqiijiyay hooyadooda waxay dhimatay 2 sano ka hor iyadoona ku umul raacday mid ka mid ah isbitaalada magaalada Baydhabo waqtigii la weynayay waxay ehelka ugu muqanaayeen dugsi quraan oo ay dhiganayeen dhacdadan waa mid ku cusub magaalada Baydhabo Muxdin Xusni Universal TV Baydhabo